Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan khiyaarta wada nagala socotahay. Halkani waa page-kan ku leenahay Facebook ee Dayax Weerar Media. Waa mar kale iyo silsiladeeni taxanaha ahaa ee qisadii Sheekh Deeq Allah u naxariistay qaybtii 3. Qoraaga qisadani waa Nafti Hore Cabdirasaaq Shukri. Waxaan idin akhrinaysaa anigoo ah Maryan Xamdi. Gaadhigii waa uu naga laabtay, waxaana ciidanka horkacaya ninkii wada maryaha 3 saac markaan soconay. Waxaanu galnay silsiladii buuraleyda ee Barmago ama buuraha Ceergaabta. Waa buuro isku xidha feer ilaa Shilaabo. Jiiro dhaadheer ee la fuulayay lagana degayay ayaa waxaa nagaga xanuustay Nafti Hore Gadhcase oo runtii ahaa da' markaas. Ayuu Allah u naxariistay halgama Sheekh Deeq ciidanka fadhiisiyay. Markaan in yar nasanay ayaan haddana hayaankii galnay. Xanuunkina waa uu ku sii siyaaday. Nafti Hore waxa uu awoodi waayay inuu buurta fuulo kana dego. Waxaa laga qaaday boorsadii watay iyo beelkiisii. Markay tahay 9 saac oo habeenimo ayaa waxaa dhaqaaqi waayay Nafti Hore Gadhcase. Allah u naxariistay Nafti Hore Sheekh Deeq ayaa ciidanka yidhi nasta waardina bixiyay. Waxaa la noo kiciyay salaada subax. Markaan tukanay ayaan bilownay hayaankii iyo socdaalkii. Markay qorraxdu baal ka soo bixisay ayaa waxaan soo jirnay qoys meel deganaa. Waxaan arkay odayga reerka. Marka uu sidaas noo arkay ayuu cararay. Waa uu naga fogaa. Nafti Hore Beergeel ayaa yidhi ma soo qabtaa. Allah u naxariistay Sheekh Deeq ayaa yidhi iska daa. Haddaad xabad ku rido shanqadha ayaa la maqliyay. Markay tahay 3 saac oo aroornimo waxaa noo dhaqaaqi waayay Nafti Hore Gadhcase. Allah u naxariistay halgama Sheekh Deeq ayaa ciidanka ku yidhi raad gata. In muddo ah markaan raad gadasho ku jirnay ayaan meel degnay. Waardi ayaa la bixiyay. Shaahna waan ku karsanay. Markaan shaahaynay ayuu Nafti Hore Dhabuuka yidhi odaygii maanta inuu ina soo sheego ayaa laga yaabaa. Waayo farajanno way noo muuqataa. Liyuuga ayaana degan ee ciidanka hab dagaal ha loo dejiyo. Markaas ayuu sheekhu ciidanka fayliyay. Nin walba geed geliyay. Cadowgu hadduu ina soo galo hadday idin arkaan waad ku ridi kartaan xabadda. Laakiin hadday ina arag xabad ha ku ridina ilaa aan alarmiga yeedhiyo. Qorigii 7-ka ahaa dhaxda ayaa la geliyay. Meeshu waa meel faraq ah. 4 saac iyo badh markay tahay ayayna soo galeen in maleeshiya ah iyo in liyuu ah oo yaacaya oo ku haya aabbo meel kale ayay u duuleen. Ee shaalaqa hebel weydii inuu raadkoodii helay. Markaas ayay istaageen. Ku yar ayaa u waday aykoonka. Markuu sidaas ugu dhiibay aykoonkii waxaa yeedhay alarmigii. 7-kii Nafti Hore Beergeel ayaa ku riday. Waxaana bilowday dagaalkii. Iyagu xabad saasa nagumayna ridin. Waxaana goobtaas aan ku dilnay 3 ciidan ah iyo horjoogihii ciidanka. Annaga waxba nama soo gaadhin. Isla markiiba alarmigii ayuu sheekhu yeedhiyay. Baxa ciidan kale ayaa la socda ee durbay naga saara goobta. Sidaas ayaan dagaalkii kaga baxnay annaga oo waxna soo gaadhin. Xabaddu markay bilaamatay ayuu naga cararay ninkii wada maryaha ahaa. Indhaha ciidanka u ahaa waayo dhulka maana aqoonin. Meelaha cadowga leh isaga ayaa noo sheegaya. Waxaa nagu dhacay jahwareer dhan walba ah. Xitaa meelaha biyaha leh aysan ciidanku joogin isaga ayaa yaqaanay oo la rabay inuu nageeyo. La soco qaybta 3 intaan ku kulmi doono barnaamijkeena xiga. Waxaan kaga tegaynaa aniga iyo bahda Dayax Weerar Media. Sidaas iyo nabadgelyo. Qaybtii 4 iyo qisadeeni taxanaha ahayd ee Allah u naxariistay Sheekh Deeq. Dagaalkii waan ka baxnay. Wada maryihiina wuu naga cararay. 2 caag oo biyo ah oo uu noo wadayna wuu nagala tegay. Maalinkii oo dhan maanan socon ee meel ayaan galnay xidh ah. Casar gaaban markay ay tahay ayaan bilownay hayaankii. Dhulka ma naqaano laakiin Nafti Hore Dhabuuka waagii dagaalkii 7 wadada maray ayaa ciidanka horkacay. Markay ay tahay 4 saac oo habeenimo ayaa waxaan maqalay dhawaaq iyo muran. Waan istaagnay. Markaas ayuu Nafti Hore Sheekh Deeq aniga iyo Beergeel noo diray oo wuxuu yidhi soo ogaada. Meeshii ayaan aadnay. Marka aan ku dhawaanay ayaan maqalay shaalaqe ayagoo iskugu yeedhaya. Waxaan ogaanay inay yihiin liyuu. Waan ku sii soconay ilaa aan aragno wado
wadada ay ciidanku fadhiyaan waardigana ka hayaan waa wadada isku xidha Feerfeer ilaa Shilaabo. Waxaan ku laabanay ciidanka, akhbaartii ayaan siinay. Markaas ayuu sheekhu yidhi inaanu wadada soo goynayno ayay ogyihiin, sidaas ayayna u xidheen. Wadadu caawa way xidhan tahay ayuu yidhi Nafti Hore Dhabuuke. Maxaynu samaynaa? Sheekha ayaa ku yidhi waanu garab qaadaynaa inageeya shanqadhana ha la yareeyo, ilaan ciidankuba wuxuu is hayaa labada baar. Marka ay tahay 8 saac isdhahno hadda waad goyn kartaan oo meeshu waaba cidla, baanu shanqadhooda maqalnaa. Markaas ayaanu dib u laabanay. In muddo markaanu soconay ayuu sheekhu dejiyay ciidanka, waardina bixiyay. Waxaa ciidanka la toosiyay salaada subax. Markaan tukanay ayay Dhabuuke iyo sheekhuba gees iskula baxeen. Marka ay wax yar naga maqnaayeen ayay noo imaadeen, waxayna noo sheegeen inaan wadadii ka wardoonno, isla markaana in la mari karo iyo in kale aan ogaano. Marka ay tahay 2 saac aroornimo, wadadiina aan u dhownahay ayaa waxaan ku soo duldhaxnay cadowgii. Waxaan aragnay annaga oo ku dhex jirna, isla markiiba iyaguna waa ayna arkeen. Xabadii ayaa bilaamatay. Sheekh Deeq ayaa ciidanka dagaal gelinaya. Ninkii ugu horeeyay ee xabadda ku rida ayuuna ahaa. In muddo markay socotay ayaan dib u baxnay. Markaanu gees aayar ugu baxnay ayuu ciidan dhabar jabin na soo galay, laakiin waxaan ku fiicnayn oo na caawisay. Gees ayaanu u baxnay isla markiiba. Waxaana naga shahiiday Ilaahay oo naxariistay Nafti Hore Yuusuf Yamani. Wuxuu ahaa ninka geeska u xigay. Marka ay xabaddu kululaatay ayuu toos sheekhu ciidanka u fadhiisiyay. Xabadda ayuu kolba dhinac ka galayay, asagoo ciidanka guubaaminaya. Sheekhu dhaawacmay. Xabaddu marka ay ku dhacday waxaa ka garab dagaalamayay Nafti Hore Xayadheere. Isla markiiba wuxuu ogeysiiyay xabadda oo socota Nafti Hore Dhabuuke. Isaga ayaa laarmigii iyo dagaalkiiba la wareegay. Beergeel iyo Xayadheere ku yidhi sheekha dhaawaciisa saara, ciidankana dib ha u baxaan oo difaaca sheekh ayuu nagu yidhi. Wax yar kadib waxaanu ku dhaadhacnay meel faraq Ilaahay amarkii Nafti Hore Gadhcase ayaa dhinac u baxay. Faraqii markaan galay ayuuna arki waayay. Markaas ayay isagii wada ceyrsadeen. Dhaawaciina ma aynan arag. Nafti Hore Dhabuuke ayaa yidhi xabadda ha ku ridina. Ilaahay amarkii ayaa maalinkaas noo fudeydiyay dhaawaca sheekhana inaan si nabad kula soo baxno. Markaan in muddo sheekhi tunka ku wadnay ayaan meel xidha degnay. Sheekha waxay xabaddu kaga dhacday bowdada, laakiin ma aynan jabin lafta ayay gaadhay. Kadib waxaanu ku dhifanay dhiig joojin, meeshiina waan dhaqnay. Markaas baanu faashad ku duubnay. Sheekha waxaa soo gaadhay dhaawac adag. Nafti Hore Gadhcasena waxaan ku tirinay inuu shahiiday, waayo ciidankii oo dhan ayaa ceyrsaday, wuuna xanuunsanaa oo ma ordi karayn. Dagaalkii waxaa naga soo gaadhay khasaare. Ilaahay ha u naxariistay Nafti Hore Yuusuf Yamani. Waxa uu waday 2 caag oo biyo Gadhcasena wuxuu waday caag biyo Sidaas waxaa gacanta naga kaga baxay 5 caagadood oo biyo Markii horena 6 baan wadanay. Waxaa noo soo hadhay 1 caag oo badh Markii ugu horeysay nu degnay ayaan ciidanka shaah ugu karinay. Talo way nagu ciirtay. Raggii aan saaxiibada ahayna badh way shahiideen, badhna iyaga oo dhaawac ayaan tunka ku wadanaa. Qaarna geeri iyo nolol midnaba kuma hayno. Biyo ma haysano oo dhulka ma naqaano. Wixii ciidan ahaana dhulka ayaa lagu soo rogay. La soco qaybta 4 qoraaga qisadani waa Nafti Hore Cabdirasaaq Shukri. waxaan idin akrinaysay anigoo Maryam Xamdi Khaliif. Inta aan ku kulmi doono xalqada xigta waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.